sabab aan ku shaqeysto oo magaalada ku maray ma haasto qof xuriye ah shaqeysan karo qof xuriye ah codka iyo muuqba garatay kan waa Maxamed Cabdiraxmaan iyo afadiisa Ruqiya Cabdullaahi lamaanihii qaranka balse maanta uu wehelinayo wiilkooda yar ee aan weli sanad jirsan lamaanahan oo hadda ku nool magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah tan iyo markii uu geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Engineer Yariso kaasi oo markii horeba dusha u ritay noloshooda cidla ciirsi halis amni iyo sidoo kale nolosha oo ay xabsi guri ku noqdeen ayaa isugu darsantay Maxamed ayaa si dareen leh iiga codsaday in aan muuqaalkiisan la wadaago bulshada si intii caawin kartaa ay u garab istaagto qoyskiisan ehelka u noqday murugo iyo nolol adag gabartan guurka markaa guursaday inaa adeerkayga fooqayna loo dilay suxnaan loo dilay qof bilaadan saas looma dilo waan la gubay guuga kadib waxaa dhacday inaa aniga oo marba meel aan ku dhumano meel aan ku harsanaba ka siwaani marba meel aan ku dhumanayni waxaa wataa adeerkayga garab igu siinay gabartii hadii adeerkayga la dilay kadib aniga inaa la dilay ayaa isweydinay qofaad ma isweydinayso anina cabsi darteeda gabartii la dhumanaa marba habeen marba meel aan seexanayni markaas kadib waxaa dhacday in dad garab nagu siiyaan oo meel nagu qariyaan markii meel nagu qariyaan kadib waxaa dhacday inuu jiray Yariso inuu garab na siiyo oo meesha naga soo kaxeeyo markaas kadib meesha asana keenay intuu noolaay maasha Allah gabartii Ilaahay wiil iga siiyay wiilka hadda waxaan ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole aan ku sameeyay markaa ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole maxaan jiray Yariso waa Allah u naxariisto oo dhintay markaas kadib jiray Yariso markuu dhintay kadib ilaa markaas wax oo daryeel ah ma haasano meel cidla taaganahay haddii aan shaqeysan lahayna sabab aan ku shaqeysto oo magaalada ku maray ma haasto qof xuriye ah shaqeysan karo qof xuriye ah ma shaqeysan karo runtii inkasta oo hadda Ruqiyo iyo Maxamed aad isku jecel yihiin iskuna qanacsan yihiin haddana waxay markasta u baahan yihiin inay helaan nolol wanaagsan taasna waxay ku hergeli kartaa kaliya shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiya lamaanahan isjeclaaday balse waqtiga iyo qadarta alle ay ku dhacday waa kan mar kale Maxamed oo cod dheer walaalihiisa Soomaaliyeed kula hadlay waxaan ka rajeynayaa Soomaali inay garab qabtaan inay garab isiyaan inaa bilaadanimo la fiiriyo ومسلم اللي فيريو وإسلام اللي فيريو وقبل اللي يسيو ولا ليه وحنا كعصنا صومالي يعني نقرب السيان قدوميها قبل كعصمنا حسن ما كعصنا إنه نقرب نسيو وصومالنا وحنا وقبطو سي باسكي قدومي على من حريسته جري يريسو إنه نبوحي عن كعصنا قدوميها قبل كعصب تحت عصنا كعصنا دولدين سيدو خلق وحنا كعصنا garab nasiiso ayadaha adduunka dhan waxaan ka codsanaynaa sidoo kale ayagana inay garab nasiiyaan aan ka codsanaynaa haddaba walal caawi oo ka qayb qaado gurmadka walaalkeen iyo qoyskiisa